السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ولا ku xidhan channelkeena qubtaan soo dhawaada weli ma waxaad aamini laadahay in uu jiro qof ku sugan xaaladan aad arkayso oo qalbigiisa ama wadnihiisa uu ku yaalo qaybta ka baxsan jidhkiisa oo uu ka koreeyo kaliya dubku waxaan kuu soo gudbinayaa maanta xaaladda naadirka ee Firsaafiya laakiin intaynaan muuqaalka u guda galin fadlan haddaad channelka ku cusub tahay subscribe saar videogana like saar aad iyo aad ayaad u mahadsantahay aan u guda galno muuqaalkeena maanta waxa ay dhalatay gabadhan lagu magacaabo Firsaafiya iyadoo uu qalbigeedu ku yaalo qaybta ka baxsan jidhkeeda oo uu ka koreeyo kaliya dubku laakiin inkastoo ay dareento mar walba xanuun laakiin waa mid ku faraxsan nolosheeda xaaladan Firsaafiya waxaa lagu dhahaa afka Carabiga cilmu taxakumi fi saytara oo macnaheedu yahay in qafaska sare ilaalinaya qalbiga uu ka maqan yahay meesha dhakhaatiirtii baaritaanada ku sameeyay waxa ay waayeen sabab rasmi ah oo ka dhigtay inuu qalbigeedu ku yaala gabadhan yar xagga Firsaafiya dhalashadeedii kadib marka ay jirtay usbuuc waxay hooyadeed sheegtay in dhakhtaradii ay ka saareen sanka baashi neefta ay ugu jirtay iyagoo u sheegay inay xaaladeedu dhammaatay dhimashana ay u diyaar noqotay waxayna tiri waxay ahayd waqtiyadii igu murugada badneyd nolosheeda anoona aad u ooyi jiray moodayayna inay gabadheedu dhimanayso sidoo kalena waxay tiri markaan caloosha ku siday gabadheeda usbuucii 26aad waxaan ku dhacay dhakhtarka dhexdeeda waxaanan ka cabsanay inay gabadheedii igu dhex dhimatay dhakhtaraduna waxay sheegeen inay dhiman rabto gabadhan ayna halis ugu jirto inay dhimato saa darteeda loo baahan yahay inay iska soo rido ama iska soo saarto gabadheer waxayna sheegtay inay la soo hadleen dhakhtaradu iguna qancinayeen inaad ka soo rido gabadha laakiin anigu waxaan ku adkaystay inaan gabadheeda haysto ilaa ay ka gaadhayso waqtiga ay ka dhalan lahayd waxayna gaadhay xilligii ay dhalan lahayd waxaan aragnay gabadhii oo qalbigeedu furan yahay kana baxsan yahay meeshii loogu talagalay caadi ahaanta ahayd Firsaafiina waxay tiri mar walba waxaan kala kulmaa dhibaatooyin dhanka asxaabtayda ah iyagoona igu jeesjeesa in adeegsada kalmado aad iyo aad ii xanuujiya runtii waan nacabahay ayay tiri asxaabtayda maadaameyna ii tixgelinayn xaaladaydan aanan anigu qacanteeda ku keensan xaaladan Firsaafiya xataa waxay dhibaato ku haysaa caafimaadkeeda guud iyadoonan ordi karin tallaabo xoogana qaadi karin jaranjaradana aan fuuli karin weliba aanan ka soo daadegi karin iyo weliba waxyaabo badan oo ay qabtaan ciyaalka qayrkeedu ah ama ay isku da' yihiin ma qaban karta iyadu sababtoo ah waa xaaladeeda naadirka ah ee cudurkan ay la dhibaataysan tahay inkastoona cudur ahayn haddana waa dhibaato caafimaad waxayna adeegsataa mar walba oy dareento inay oksijiinteedu hoos u dhacday qalabkan yareed arkaysaan Firsaafiya waxay tiri mar walba oon kala kulmo jees dadka waxaan isku dhaafiyaa anigoo khadka ka raadiya dad la dhibaataysan xaalada naadir ah isla dareensiiya in ay jiraan dad sideedoo kale ah oo dhibaataysan aanan ahayn keligii markaasna waxaan dareemaa waxoogaa yar oo nafis ah waxayna tiri waxaan tusaale nool u ahay caddayn buuxdan aan u ahay dhakhtaradii lahaa ma sii noolaanayso toddobaad ee way dhimanaysaa gabadhan waxayna tiri waa xikmad ilaahay loona baahan yahay in lagu cibro qaato mana ihi ayay tiri gabadh qalbigeedu uu ku yaalo qaybta ka baxsan qafaska loogu talagalay ee waxaan ahay gabadh saameyn ku yeelan doonta dad badan oo caalamka ka mid ah innagana nooma bannaano waxaan ka ahayn inaan niraano subxaana alladii biyadihi malakuutu kulli shayin wa huwa calaa kulli shayin qadiir wax walba ilaahay ayaa awooda muuqaalkeena gaabanna intaas ayuu ku egyahay intaan ku kulmi doono muuqaalka xiga waxayna kaga tegaa asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu